kulankani maanta ay yeesheen golaha baarlamaanka ee dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa waxaa looga arinsanayay qodobo ay ka mid ahaayeen sii socodka kala fadhiyada yeeshaan golaha baarlamaanka ee dowlad goboleedka Hirshabelle kaasi oo maalmahaniba xildhibaanada golaha baarlamaanka ee dowlad goboleedka Hirshabelle murano ay ka soo taageen waxaana qayb ka mid ah golaha baarlamaanku ay qabeen in gabi ahaanba uu soo xirmo kala fadhiyadu ay yeeshaan golaha baarlamaanka walow dood dheer iyo waliba soo jeedinta khudbado ay goluhu ay ku tilmaamayaan ahmiyadda sii furnaanshaha kala fadhiyadu goluhu ay yeeshaan ay ka soo jeediyeen madasha baarlamaanka ee dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa ugu dambeyn waxaa la isku afgartay isla markaasina cod aqlabiyeed la sameeyay lagu doortay inay socoto kala fadhiga baarlamaanka ee dowlad goboleedka Hirshabelle ugu dambeyn gudoomiyaha baarlamaanka ee dowlad goboleedka Hirshabelle Sheekh Cusmaan Bare Maxamed ayaa sheegay in si gacantaag ah lagu ogaan doono cidda ogol in gabi ahaanba uu xirmo kala fadhiyada baarlamaanka iyo waliba cidda daneynaysa inay sii socdaan shaqada ay hayaan golaha baarlamaanka ee dowlad goboleedka Hirshabelle iyadoo gacantaag kadib gudoomiyaha uu shaaciyay inuu sii socon doono kala fadhiyada golaha baarlamaanka ayaa waxaan iska celin karnaa dowladda federaalka baarlamaanka furan oo la arkay inaan joogno balkii laga gartay inay dowlad joogto ayaa anagu hay'addeena iyo sharafteena ay ku soo noqon kartaa xildhibaanada sharaftan waxaan ka codsana maanta waxay taagan tahay inaan u helino Hirshabelle baarlamaanka waa furan baarlamaanka waxaa leeyahay aniga fikradeyda waa furnaana sababta ay tahay baarlamaanka waxaa la yidhaahaa meesha lagu shiro xildhibaanna waxaa la yidhaha ninka baarlamaanka meesha lagu jiraan tagayo xildhibaanada xuquuqdii ay lahayd weli lama helin waxaa laysiga markhaati yahay laakiin in la dhisay guddiyada in la dhisay markhaati aan isaga yahay kuma jirto ma garanaysaa dhibka ma jiro laakiin baarlamaanka alla fasaxe 7 bilood 3 door basuu wax qaatay 2 bilood oo kalena alla geeyaa la yidhi haddee labada kun inay shaqnaato dabadka kala qaydamaana anaga raalli aad lagu hosxaweeyaa aawo meel baarlamaan laga hela aawda maanta meel in laga aado reera laga soo sanaanaa mee aawda dad xanuunsana u tigi kuwa dhibanaan u tigi gurigaagood ka bari waxaad haysaba male kadib markii ay soo idlaadeen ajandihii golaha baarlamaanka ee lagu ansixinayay sii socodka kulamada yeeshaan golaha baarlamaanka iyo weliba kala fadhiyada golaha baarlamaanka ayaa waxaa ugu dambeynba shir gooni ah ku dhex yeeshay xarunta golaha baarlamaanka ee Hirshabelle gudoomiyaha golaha baarlamaanka ee maamulka Hirshabelle iyo labadiisa ku-xigeen waxaana shirkani ka qayb qaatay xubno ka mid ah golaha baarlamaanka kuwaasi oo loo magacaabay guddiyo kala duwan oo golaha laga dhex abuuray kuwaasi oo ka mid ah guddiga sharci dejinta iyo guddiga anshax ilaalinta golaha baarlamaanka ee dowlad goboleedka Hirshabelle Sheekh Cusmaan Bare Maxamed gudoomiyaha baarlamaanka ee maamulka Hirshabelle ayaana saxaafadda u sharxay ujeedka xubnahani golaha baarlamaanka looga soo dhex saaray iyo waxa xubnahani loo sameeyay baarlamaanka dowladda Hirshabelle wuxuu qabtay shaqooyin fara badan oo ay ka tahay dhismihii guddiyada hordoodayaasha la doortay iyo in maanta isku raacay in kalfadhiga baarlamaanka kalfadhigiisa labaad uu furmaayo intaas oo hadda maxaa rabaa oo inoo haray in la ansixiyo howlihii guddi ku-xigeenkiisa sida sharciga dastuurka iyo xeeroosaadkiisa maxamuud walaal xasan waxaa waa gudoomiyaha guddiga caafimaadka iyo waxbarashada gudoomiyaha guddiga xeeroosaadka anshaxa xasaanada iyo daryeelka xildhibaanada السيد عبد اللطيف محمود حاج استاذ عبد الفتاح احمد معلو عبد الفتاح زكي تلفزيون كعالمي جاي بولشو جوار